cudurkan malaariyada waa la daaweyn karaa waliba si fudud ayaa loo daaweyn karaa. Waxaan ku leeyahay inta uusan ku gaarsiin xaalad xun oo aad dhiig la'aan iyo xaalado kala wajihin tag dhakhtarka si lagu daaweeyo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Wacna wanaagsan saaxiibayaal, soo dhawaada. Maantay waa 25-ka Abriil 2022. maanta oo kale sanad waliba waxaa la xusaa maalinta cudurka duumada adduunka World Malaria Day. Inta aanan guda gelin muuqaalkeenan waxaan ka codsanayaa inaad barnaamijka noo share gareyso. haddii aad kamid tahay saaxiibadii hore noola joogay like-tana aad noo saarto. haddii aad nagu cusubtaan waxaan ku leeyahay soo dhawow oo channelka noo subscribe garey. aad iyo aad ayaad mahadsantahay. sababta ugu weyn ee maalinkan loo xusano waxay tahay in laga wacyigeliyo bulshada saameynta uu leeyahay cudurkan, sida looga hortago iyo waliba sida loo daaweeyo. sidoo kale dunida horumartay waxay kale oo maalinkan xuskeeda u isticmaalaan inay ku soo ururiyaan lacag deeq ah, taas ay ku sameynayaan baaritaano aad u ballaaran ee cudurkan ku saabsan. malaariyada ama duumada waa cudur laga hortagi karo sidoo kalena la daaweyn karo. malaariyadu waa cudur aad u halis ah, marmarka qaarna waxay sababtaa dhimasho. malaariyada waxaa sababa parasite loo yaqaano plasmodium. plasmodiumkaas waxaa xambaarsan nooca kaneeco ee loo yaqaano mosquito anopheles, nooca dhadig ee kaneecada. plasmodiumka ay kaneecadu xambaarsan tahay wuxuu noqon karaa 5 nooc mid uun. macnaha plasmodiumku waxay leedahay 5 species oo kala duwan. waxaa kamid ah ama ugu caansan plasmodium vivax iyo plasmodium falciparum pf. plasmodium falciparum waa mid aad ugu halista badan. marka ay qofka qaninto kaneecada xambaarsan plasmodiumkan waxa ay parasitekaasi u gudbayaan beerka, kadibna meeshaas ay ku tarmayaan, kadibna waxay raaci doonaan unugyada cascas ee dhiigga ee loo yaqaano RBC. marka ay raacaan waxa ay bedeli doonaan qaab dhismeedka ay u samaysnayd RBC. markaas kadibna waxaa dhici doonta inay ugaarsado beeryarada oo ah xubin kamid ah difaaca jirka, balse markii RBC-du duqoobaan ama ay gaaraan 120 bari ama uu muuqaalkoodu halaabo baabi'isa. sidaasina maadaama ay plasmodium dhex gashay unugyadii cascasay ee dhiigga, halkaas ayaa lagu ugaarsan doonaa laguna baabi'i doonaa. qofkiina cudur labaad ayuu meeshaasi ka dhaxli doonaa, kaasoo ah anemia ama dhiig la'aan. qofka qaba duumada calaamadaha ugu badan ee malaariyada lagu aqoonsado waxaa kamid ah madax xanuun aad u fara badan, qandho, jarays, afqareer, lalabo, matag iyo marmarka qaar inuu qofkii dareemo wareer maadaama dhiig la'aan ay jirto. cudurkan malaariyada aad iyo aad ayaa looga hortagi karaa iyadoo la isticmaalayo techniques ama farsamooyin kala duwan. qaababka looga hortagi karo waxaa kamid ah haddii ay kaneeca jirto waa in la buufiyaa guryaha, la isticmaalaa sunta lagu dilo cayayaanka. sidoo kale waa in la xirtaa mara kaneecada. sidoo kale waa in guriga laga ilaaliyaa biyo fadhiya ama biyo wasaqaysan oo meel yaala. waxa kale oo looga hortagaa oo ay leedahay tallaal. sidoo kaleetana daawooyin ayaa jira la qaato si looga hortago malaariyada. cudurkan malaariyada waa la daaweyn karaa waliba si fudud ayaa loo daaweyn karaa. waxaan ku leeyahay inta uusan ku gaarsiin xaalad xun oo aad dhiig la'aan iyo xaalado kala wajihin tag dhakhtarka si lagu daaweeyo. halku dhiga sanadkan ee cudurka duumada wuxuu ahay waa in la helo hal abuur cusub ee lagu yareeyo cudurka duumada iyo culeyskeeda laguna badbaadiyo nolosha. WHO waxay soo saartay 2020kii in dad gaaraya 241 milyan oo qof oo ku dhacay cudurka duumada, halka ay u dhinteen 627,000 oo qof oo ku nool 85 wadan oo kamid ah dunida. halka dadkaasi dhintay 3 meelood 2 meel ay ahaayeen ilmaha ka yar da'da 5 sano. taasina waxay ku cadeynaysaa cudurkan duumada inuu aad uga halis badan yahay ilmaha ka yar da'da 5 sano. haddii aad halkan soo gaartay fadlan channelka noo subscribe garey, sidoo kalena like-ta inagu caawi.